waayahay wacanoo wanaagsan meel kasta oo aad joogtaan haddaba waxa weeyaan maalin kasta oo sabtiya waxaad nooga barateen intaanan soo gedayn kaftanka siyaasadda horudhac yar oo aan rabno in aad ku sii sugtaan intaanu idiin soo gudbinayno kaftankiyo isu dhan marka had iyo jeer kaftanka siyaasadda waxaad nagala socotaan maalin kasta oo axada ayaad la socotaan insha allah maantana waxaan ii soo gudbin doonaa xoogaa hardhac ah bal waxaan nin kala baxayaa idinka yahee cali xaraari hay cali maxaa haysaa okay waa mahadsantiin sida yaasiin idiin sheegay waa hordhaci maaha barnaamijka isu dhan marka qodobo dhowr aan ku soo qaadan doonaa waa saase waxa aan facebook imika ka sii deynaynaa ha in yaroo kooban haye ugu horreeya waxa weeye ha isku dhexyaac haye ka dhex taagan ha salaadiinta somalilan haye oo saamaysay ha in haddii ay ku ran yahay ay booga dhaqanto waa saase dad fara badan ba aad uga xumaaday haye nin la yidhaahdo suldaan xasan suldaan cabdilaahi oo hadal xanaf leh madal ka jeediyey waa saase wuxuu sheegay oo uu yidhi nin baan hadii jeer abti odhan jiray ayaa igu yidhi reerkiinu ima dhaline abti maxaad ii leedahay marka wuxuu yidhi sow jeegaanta kumay dhalin marka suldaankii wuxuu meel mariyey jeegaan oo ahaa isxulufaysi laba reer isxulufaysteen inayba tahay hayb oo ayd haybtaa odhan kartid imka jeegaan baan u dhashay jeegaan baa ay dhashay jeegaan baan ka qabaa jeegaan baan abti u ahay ya jeegaan baan jaarnahay jeegaan baan halkaas ku soo aragnay marka bal waxaan salaadiintii baa marin hawaabinaysa shicibka caadiga shicibkii way wareeraysaa salaadiinta Soomaaliland waxay u baahan yihiin naftooda in lagu sameeyo rishafal isku shaandhayn in lagu sameeyo ay soo bandhigaan salaadiinta saxda ee dadka u ducaysa iyo salaadiinta dadka wareerisa inay kala saaraan oo A iyo B loo kala saaro war wala isku shaandhay way taas waa saase hadii jeegaantu ay tahay hayb ama qolo oo abti qofkii ku yiraahdo oranaysa ma jeegaan baa ku dhashay waxay noqonaysaa ciyaalka qurbaha jooga oo dhan abti bay inay Soomaaliya abti bay koranaya ma jeegaanta dhashay iyaga شاشة إنه السودان كتير السودان كتاسي إنه شيء تا يصير وصامي سي شعبك واساس أيين إيه قدونا قبل بالك في السودان هرقيسة لما وين أيا كفصلي واساس وين الشيء كفصلي هركي الشرعي لما مرينا الله عقابها عقاب دولة قدر أيا فيزا وصدرت دولة قدر أيا لما دوين فيزا وصدرتي هي وحلو فينا وطنك قدر بسم الله الرحمن الرحيم وردا وحركه هي marka dayma waxay noqonaysaa dhiirigelin ninkii gabar kufsada in la dhoofiyo waa taas ab dhibaato waa nidaam cusub oo tafaasiishiisa aynu ka hadli doono horeen waxaynu eegi doonaa heesta saameynta weyn ku yeelatay barbar ururta soo dhaweysay marka barbartii ayaan dhageystay moogta waa jeegaanto kale jeegaanto ka darantahay barbar markaan dhageystay horta waxa daawaday 2 milyan oo qof 2 milyan oo qof baa daawaday culimada Soomaalida Sheikh Mustafa iyo Umar ayaa kamid yihiin 2,000 baa daawata inna lillaah marka waxaan sii ma ninka heesta ku qaadaya iyo heesta wax ka khaldan ma kii sameeyay baa khaldan ma heesta khaldan waxaan sii markii dambe intu waa saxsan yihiin dadka waalan dadka Soomaalida ayaa waalan ba markii heesta ka heleen waxa ma jiraan wardadka الله يحترم باش إلا أنا قاعد حرقني مركا سوالد وانا يا انت عقلك غير انت عقلك بدل له وحاب بدل انت عقلك غير مركا برينا كركر كركر فين بحيسا مرب بدل بدون dadكم بس بيريه اوكي هذا ما تحرق دونا هيستن سيقدن لو هيسو بربر عرعر كركر هدي لها كوري اريد نوعاس قافيدا oo iyana ay ku haystay gabadh la yiraahdo deeqa afro oo iyana saaxiibkay baa tahay sax daadi tiraahid ba riicanka salada labada qaafiyadood oo imka Soomaaliya ku cusub ana keeno dadka baray adiga laftigaana wala haye aniga laftay calehan ayaa dadku soo bandhigay oo baray ninka dadka walay baa tahay oo fikrad la haday fikrada dad badan baxsoonayaan cali gudama fanaan baa miyo heesan miduu sameeyaa wala casbi labada midna mihi haye aan ka cudur daaray laakiin sida ku timid
waa sir haye barnaamijka gudihiisa ayaan ku soo bandhigayaa anigu caddayntii keenaya iska hadal maaha laakiin caddayntii oo saxa ayaan ku soo bandhigi doonaa waa saase taasna dadka waxay ku noqon doontaa mucjiso arrin mucjisa haye farmaajo socdaalkiisii ayaynu ku eegi doonaa iyadana oo meelo badan maray intii ka dhinnayd ee galmudug iyo dhuusamareeb waxaynu eegi doonaa mid ka mid ah waasiyada gobolladaasi oo geeliisi u soo lisay oo hadhub canaasiyey ayuu markuu ka baday kabashadii labaad xaaf baa ka dafay xaaf geel jecela مثل حاف بحروك والله عيب وين وحوم الريبي والله ورقيدي يوحسن إنك عاني قال اسمي قناة هذا وضع كي ولقى بتشوي هانت وكلاعي مركا داودياش إنه حلنا هالسوق هنا سعادة صوص سعادة إن شاء الله يبها ودنا وقرا أيام البرنامج كسودان نيسو قد من دونا waayahay mar dhow ayaan barnaamijka oo isku dhan inii soo gudbin doonaa insha allah marka waxa weeyaan waa inoo iyo saas ina kala kaxeeya saan ugu kala kaxeeya waa inoo iyo berito